gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa maanta xariga ka jaray xafiisyo iyo hoolkan weyn oo laga hirgeliyay degmada Daynile ee magaalada Muqdisho sidoo kalena oo isla maanta gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho hoolkan cusub ee degmada Daynile ku qabtay shirkii caadiga ahaa maamulka gobolka Banaadir iyo dhammaan mas'uuliyiinta maamulka degmooyinka oo ay wehliyeen sidoo kale agaasimayaal ka tirsan maamulka dawladda hoose ee Xamar shirka ayaa waxaa loogu hadlay qodobo dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen soo dhaweynta bisha barakeysan ee Ramadaan iyadoona gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish uu kula dardaarmay dhammaan maamulada degmooyinka gobolka Banaadir in ay u turaan shacabka ku dhaqan gobolka Banaadir isla markaana sidoo kale shacabka kula dardaarmay in ay markaasi iscaabiyaan maadaama bisha barakeysan fadligeeda qof walba oo ka gacan sareeya qofka kale loogu baahan yahay inuu gacan siiyo iyadoona xaalado COVID-19 ah lagu jiro oo dad badan ay u baahan yihiin in gacan la siiyo oo la garab qabto sidoo kale gudoomiyaha ayaa shirkan waxa uu kula dardaarmay dhammaan madaxda maamulada degmooyinka gobolka Banaadir sidii loogu diyaar garoobi lahaa xilli roobadyada hadda la galayo oo magaalada Muqdisho markii xilli roobadyada la galay u baahan tahay in howlo fara badan laga qabto caasimadda gobolka Banaadir ee Muqdisho sidoo kale shirkan ayaa waxa loogu hadlay amniga caasimadda magaalada Muqdisho iyadoo la gudagalayo bisha barakeysan ee Ramadaan isla markaana la og yahay in kooxaha argagixisada bisha barakeysan ee Ramadaan ay shacabka hadii jeer la maleegaan dhagaro kala gidisan isla markaana gudoomiyaha gobolka Banaadir uu kula dardaarmay dhammaan maamulada iyo hay'adaha amniga in ay si wada jir ah ugu shaqeeyaan kana feejignaadaan wax walba oo lid ku noqon kara caasimadda amnigeeda isla markaana shacabka la badbaadiyo dhagarta ka imaan karta kooxaha argagixisadana laga feejignaado shirkan ayaa waxa sidoo kale loogu hadlay sidii sare loogu qaadi lahaa dakhliga ee dawladda hoose Xamar si loo dardargeliyo howlaha baaxadda weyn ee laga sugayo maamulka gobolka Banaadir ee khusay dib u dhiska dalka kaabayaasha dhaqaalaha sidii dib u dhis loogu sameyn lahaa isla markaana adeegyada aasaasiga shacabka loo gaarsiin lahaa dakhli kordhintaasna loogu faa'iideysan lahaa in laga dhabeeyo himilada iyo higsiga fog ee maamulka gobolka Banaadir uu ka leeyahay in magaalada Muqdisho bulshadeeda ay noqon lahaayeen bulsho nabad ah beledkana uu noqon lahaa beled nadiif